بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaad walaalaha sharafta leh meel walba joogtaan. magacaygu waa Sacdiye Cismaan Cali. Soo dhowaad channelkayga Sacdiye Sidso. maanta waxaan idin wadaa mask aad u fiican. Maskada sida loo diyaariyo. Maskada qaab professional ah jiro loo diyaariyo oo isagoo ka dhageynin ka halaabeynin insha Allah. marka waxaan haystaa waxyaabo badan. soo dhowaad meeshaan waxaan ku haystaa bataati ama baradho waa bataati maahan potato powder oo la shiiday waa baradho la qalajiyay oo powder laga dhigay oo la shiiday. waxaan kaloo meeshaan ku haystaa timir aydan la qalajiyay oo powder ah. halkan waxaan ku haystaa bocor. halkan waxaan ku haystaa babaay la qalajiyay oo powder ah. halkan waxaan ku haystaa yogurt la qalajiyay oo powder ah. yogurtka oo ariga waaya caanaha ariga oo yogurt ah, yogurt oo caana ari ah oo la qalajiyay waa ma ahan yogurt oo lo ah maahan caanaha waa ari waxana waa yogurt la qalajiyay. asalkiisana waxaa laga sameeyaa caana ari. marka waa isku darsanaynaa maaskan wax ka saacideena wajiga ku kobcinaya maalmo gudahood ku qurxinaya vitamin dabiici ah oo siinaya. marka insha Allah isa socono. meesha soo qaadanaya qaadada weyn si fiican buuxda oo baradho ah. waxaan ku darayaa qaadada weyn oo timir ah. qaadada weyn oo bocor shiidan ah. bocor gaduudka waaya bocorka gaduudka bocorka tito maalda bocorkaas waaya. meesha soo saari doonaa sawirkiis saan loogu qaldamin. meeshaana babaay waaya oo powder ah. ما شاء الله ما انت حسمينينا ماسك أنا عادي هين قفك قرحينايو especially dadka aan target gareynayna waa dadka dryga oo iligana waan soo geli doonaa duu Ilaahay yiraahdo. marka dadka Facebook uu qalalan yahay oo dryga ayuu anfacayaa madmadowga leh wajiga aad ayuu qurxinayaa haaraha uu qaadaa vitamin dabiici ah ku siinaya. business waa ka hagaajin kartaa insha Allah. marka si fiican isku dhaxgeli si fiican isku qas hadaad waa ku shiidi kartaa bahashan oo koofiga lagu shiido waa ku shiidi kartaa si hal mar smooth u noqoto wax dhan. laakiin anaga waqtigan ugu gaabo waa qasayna insha Allah. waa timir baradho babaay bocor la shiiday nafaqada ku jirta ma malaysan kartid iskiinka shaqada u qaban karto wax la qiyaas kara maahan. marka insha Allah waxaan rabaa in laga faa'iideysto. waxaan ku dareynaa qaadada teaspoonka oo yogurt ari oo la qalajiyay waaya. yogurt waana plain oo wax caraf ma lahayn flavor ma lahayn yogurt plain oo qalajiyay waaya. marka maaskiga hagaajisay maaskiga badan isku dartid laga yaabaa cabaar ku yaal inuu isku dhago oo maxay tahay sheeg oo iska qabsado. marka tips fiican ay siina iyo waxa ku dareysay insha Allah oo nasal ka dhigi doono. marka meesha aan ku haystaa cornstarch asoo skinka shaqo badan qabanaya hadane meesha anaga waxaan u tirsanaynaa in uu isku dhagin oo uu kala furfuro hadhow markii la qasaayeen wuxuu ka dhigaa wax creamy camal ah. ma sha Allah ku dhigayaa teaspoon استعمالنا cornstarch واي cornstarch الصومالي ورانقا لها ورانقا في طليان وأملينا صومالي سوريا صومالي قارن طليان يا قارن إنجليش قارن عربي. مرك إن شاء الله هل مرة يسكو شيء سموث يسكون قنايا ما يسكو دقايق مرك ماسك وقروح بدل. halka markay marayso waxa ku darsan kartaa vitamin C oo powder ah. laakiin dadka dryga ee xoogaa waa in caanaha loo badiyaa markaas. marka aan wax vitamins ma isticmaalay vitaminada ku jira dabiiciga ka badanba. caanaha ku badsan kartaa ku yareysan kartaa
marka saa markuu yahay ma u baahnid caano inaad ku qastid, ma u baahnid inaad saliid ku dartid, ma u baahnid bas biyo unbaad ku qasanaysaa. waayo wixiisa dhan wuu wataa, caanihiisii wixiisii nafaqadiisii dhan wuu wataa maasha allah. marka saas ayuu noqonayaa, wuu kala furfurmayaa. preservative uma baahno, intii aqoonteyda ah ma u baahno, kuma darna anaga. dadka anaga naga iibsado sii sameeyaan ma ku daraan, mana ka halaabo. marka cornstarch hadaa lagu daro si fiicanna marka hore loo qalajiyo waxa waaye ma u baahno. marka maasha allah maaska aada u cajiiba, qofkii 3 maalin result uu ku arkaayo ama wiig gudaheed maasha allah oo aada u fiican. maasha allah dadka saaluunka dadka iskale waxa waaye kasta marka hadday u mariyaan result fiican u arkaa. isla marka dadka daraayiga especially waa soo geli doonaa, dadka oiliga nabraha leh waa soo gelina insha allah. hadda waa dadka madmadowga leh, haaraha leh ama daraayiga iska inay isqurxiyaan rabaan oo waxbaba aan lahayn. marka maasha allah marka weel nadiif oo qalalana ku shubanaysaa. qof kastamkaa waa weydiinaysaa daraay maa tahay, wajigaada daraay miyaa, ma oiliya, maxaa ku dhibo. anaga mar walba waxaa muhiim ah qofka kastamarka ah waxaa fiican inuu maanta in wax lagaa gata lagu soo noqon in fiicno. waxaa fiican dadkii inay ayaga dad kale ku abuuraan oo at least maxay tahay in businesskaada uu sii socdo, ayagana aad saacideyn kartid, wax nadiifana aad ka gadan kartid, adna businesskaada uu sii horumaraya insha allah. marka maaska aada u qiimo badan maasha allah ah, qofka daraaga loogu talagalay una u baahnayn inuu caano iyo wax raadiyo saliid ku daro, sidiisa biyo u qasanayo marsanayo daraay uu ka dareemayo. waa yogurtka ku jiro maasha allah, yogurtkii oo subaga ariga leh oo maxay tahay ii sheeg caanihii ariga oo nafaqadii dhan leh ayaa ku jiro. ma u baahno qofka marka caano kale inuu raadiyo ku daro, uma baahno. marka insha allah ka faa'iidaysi wacan. qofka business uu ka sameyn karaa, asiga nafsi ahaantiisa wuu isticmaali karaa. wiigi 2 mar qofka marsada maasha allah skinkiisa wuu ka taxadiray, aad ayuu qurxinayaa, aad ayuu nadaaminayaa. especially dadka shaqada badan leh, dhafarka badan leh maasha allah zaaid u saacideynaa sideedoo kale. marka maasha allah soo dhawaada walaalihiin la sheer gareeya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.